هو يدا إنا كنا شو بديدتها مسي لا هو يدا بديدتها ما هو يدا إنا حسكت شوك تقولي كذا because وحن ووح عصب يا وحن ربنا إنا challenge كان وmarriage ويان ووح عاد وعليس بدن ميدا كله أديكو حاجي أو صاشقي ما أنتودن وح قولي بعد إيمانيسا أنيكو أفكي تاجي why because هو يدا أيان دنيا أما وح نقدر عمري maalintii you know during the day marka anigu waxaan oranayaa wali hooyada ma ka shaqaysateen ama ma kaaga shaqaysay markii iyada la guursaday sidii ahayd iyo sidii guriga loo noolaan jiray ha way waxay tiri sodohyaasha gurigooda ha joogaan horta sodohdu way dhib badan tahay run baa fiican waxga in guriga markay ku soo biirto buuq baa ku soo biira way waxyaabo aan banbanaaneen bay wiilka u sheegtaa laakiin soo maaha odagaaga hooyadii Soomaaliya seenad u ixtiraamayeen guriga kula waan ixtiraamaya laakiin sodohdayda gurigeeda joogto maxay guriga ka soo doonaysan kana ana la igu qabaa haddeen halkan afafaala iga baxay wax la yiri gabadhu guriga iyadana lagu noolaan karo way waxay ila tahay wax dhigtayda ka weyn wax la yiri ishaaduna waa kulada dhigtaaduna waa ka weyn way aniga arrin mushkilada ayay ila tahay kin Soomaalidu waxaan dad isku tiirsan oo noloshoodu aanay kala maarmin oo noloshu dad qofka wax ay inta kale soo gacan qabto ayay xid laakiin waxa muddaanimkiisa bulshada shirada badashayo waxyaabo kale inta soo raadx kale aqoontii aynu baranay waa aragnimadii ay keentay inaynu la jaan qaadno dhaqan aynaan lahayn oo kontagas reer galbeed dad kale aynaan lahayn qaabkan loo nool yahay qofku leeyahay kaliya aan noolaado ehel kaliya dad kale yaanay imanin caruurtan intan dambe jiilka lama barbaarin waxay tahay sodohdu waxay tahay oo waxay ka siyaaminsan wax qiil qaal oo la yiraahdo sodohdu markasta waa qofkaas soo horjeeda sodohdu qayb ma ka tahay marka burburka qoyska maya boqolkiiba 80 kama aha way dhici kartaa in sodohayada qaar ay si yar fikir kale u aaminsanaadaan waa dadka aan aqoonta lahayn baan oran karaa dalahan anigu waxaan qabaa in mas'uuliyadda guriga ay intu leedahay way wixii xidhiidh iyo waalidnimo waa halkii waad ogoshahay hooyada ku dhashay inaad ogolaansho ka qaadato bari markay inuu guurso waan la qabaa iyadoo weydiinay oo ogolaansho weydiisanaya sodohdii hore iyo sodohda imkiin aan isku mid bahay waaga maxaa farqiga u dhaxeeya waxa uu kala dhaxeeya sodohii hore gabadha way guubaabin jireen inankana way guubaabin jireen waa labadaba de waalid baa loo yahay waaga laakiin imika dambiga oo badan wuxuu ka bilaabmayaa sodoha isfahan waa ka dhaca inantan generationkii dambe ah iyo maamadan inankaagii wanaajiyo gurigiisii reerkiisii ka fikir ah un mooye horta waxay xumaynayaan maarmiin hooyadii guri ha u kiree waan soo booqana hooyadii bay noqotay hooyadii gurigii ibtila kuma hooyadii way ku noolaanaysaa waan ogolay kamana fasax qaadanayaan hooyadii in hooyadii guriga ku noolaato uma marayo iikaadi inaka adiga ku qaba uma fasax qaadaysid in hooyada ay guriga timaado laakiin waxaad rabtaa inuu adiga fasax kaaga qaaday ogolaansho hooyadii ana guriga ka masuula laakiin hooyadii inta doonta ku nool walaalahay baa ku noolaanay isaga fasax ugama qaaday kamana masuul aha marka taa hadaanu aniga wiilkiiga maarmiin hooyadii guri ha u kiree waan soo booqana hooyadii bay noqotay hooyadii gurigii ibtila kuma hooyadii way ku noolaanaysaa waan ogolay kamana fasax qaadanayaan hooyadii in hooyadii guriga ku noolaato uma marayo waxaana jeceshahay inuu ku ogolaansho hooyadii kaaga qaado ha hooyadii walaalkii haduu mana kala duwan yihiin hooyada iyo isaga hooyadii furitaan baa sabab saaba guriga ninka odayka hooyaduna waa marwo muxtaramaho waa hooyadii guriga hadday timaado su'aasha qaraabada hadday timaado qaraabada dhanka gabadha ka socotana guriga xuquuq bay ku leedahay gaar ahaan hadday waalidka yihiin qaraabada xagga ninka ka socotana guriga xuquuq bay ku leeyihiin gaar ahaan hadday waalid yihiin ma jirto wax la yiraahdo gabadhuna qaraabadeeda xor weeyaan oo guriga firiba iyo guriga u fasaxayay ninka qaraabadiisuna gaar ahaan hooyadii baa la magacaabay guriga marka la keenayo waa in xaaska idan la weydiisto oo hadday diidana maamada meel kale loo raadiyo ayu sharcin hada waa sharciga kufriga iyo gaalnimada waay sharci kufri waay sharci islaam ma aha hooyada maamada guriga iskale ninkeeda hooyadii iyo aabihii gurigeeda idan weydiisan maayaan lianna ninkeedaba iyaga iskale nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri anta wa maaluka li abika nin buu la hadlayay wuxuu ku yiri adiga iyo xoolahaagaba aabbaha baa idin leh
hooyadu waa ka sii xaq weyn tahay ya haddiiba ninkaagii la yeeshay oo hooyadii leedahay ya ninkaaga ciddii lahayd see baa guri loogu diidi isagii baaba la yeeshaye waa midda labaadee haddii adiga laf ahaantaada hooyada ah waalidkii ninkan dhalay inta lagu afgaran waayo ay ku yidhaahdaan waryaa middani nama anfacaysee fur waa lagu eryi marka hooyaan guri u diidi idan ha lay weydiisto guri kale ha loo kireeyo ay sharcin haada ay sharcin haada qaraabo goysnimo intaa leeg waxa laga hadlay haddana waa waalid waxa laga hadlo haddana waa waalid waaye qaraabo kale xataa hadday ahaan lahayd bacdu shari ahwar way isdhaami lahayd laakiin waalidkiibaa guriga loo diidiyo idan ha weydiisteen waa thaqaafo